Booliska Argentine ayaa toogtay shimbir daroogo u waday xabsi. Booliska waddanka Argentine ayaa waxay toogteen shimbir daroogo u waday xabsi. Waxaa sidaas sheegay mas'uuliyiinta xabsiyada ee dalkaas. Shimbirtan ayaa waxaa lagu arkay iyadoo duulduuleysa xero jeel ku yaal magaalada Santa Rosa ee ku taal bartamaha dalkaas. Wararka ayaa sheegaya in saraakiisha ay ogaadeen in ay shimbirtu ay dhabarka ku siday boorso yar oo ay ku jiraan daawooyinka la isku dejiyo, xashiishad iyo cajalad kombiyuutar. Qaabkan tahriibinta ayaa horay looga hortagay waxaana ka socday baaritaan sida uu ku waramayo wargeyska Clarín ee dalkaasi ka soo baxa. Booliska waxa uu daabacay sawirka shimbir dhimatay oo dhabarka kaga xiran yahay boorso yar oo ay ku jiraan 44 kiniini oo ah kuwa la isku dejiyo ee Rivotril, xashiishad uu miisaankeedu gaarayo 7.5 garam iyo cajalad kombiyuutar. Adeegga jeelasha Argentine ayaa ka digay 2013 in dadka ka shaqeeya maandooriyaha ay maalintii 10 ilaa 15 jeer daroogo ku qaadaan shimbiraha. 3 qof ayaa la xiray halka 15 qoley la qabtay kadib baaritaan la sameeyay 2013, sida uu sheegay wargeyska Clarín. Bilowgii sanadkan, shimbir dhabarka ku siday 178 kiniini oo daroogo ah ayaa lagu qabtay meel u dhow xuduudda dalka Kuwait la leeyahay dalka Ciraaq.